munaasabadan oo ahayd tartanka quraan akhriska ee bisha barakeysan ee Ramadaan isla mar ahaantaana ay ku tartamayeen ilaa iyo 10 arday ayaa lagu qabtay madasha Maamo Ugaasa Foundation oo ay ku dhiirigelinaysay ardayda baratay Quraanka Kariimka. Haddaba waa kan Ustaad Maxamed Ciise Maxamed oo ugu horeen ka warbixiyay ulajeedkii munaasabada loo qabtay. waxaan ku sugannahay madasha Maamo Ugaasa Foundation aan ugu talagalnay in maanta ama aan ku qabano tartan quraan akhris ah oo aan ugu talagalnay ilaa iyo 10 arday oo gabdho ah in ay ku tartamaan. ilaahay fadligiis tartankii waa inoo soo bilowday waana inoo ilaaday. waxaa soo qaban qaabiyay tartankan ama taabagelinaya madasha Maamo Ugaasa Foundation oo ay ku dhiirigelinayso ardayda quruxda badan ee halkan ka soo muuqday cid markaas guuleysata oo calafkeedii noqota in badan guddiga ka soo naqaasheen waqti badan galiyeen ruuxantii intaas oo dhan waqti waxa loo bixinay waxay ahayd in la helo 10 kaas arday ee tartantay kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad dhamaantooda ma wada guuleysanayaan balse cid ilaahay calafka u qoray dadaal badanna ku bixisay tartamayaasha tartamay ka dadaal badnaa ayaa guusha maxaa ku raahdaa ilaahay uu raacsiiyay. Macallin Shariif Maxamed Cumar, Macallin Maxamed Nuuno iyo Macallimad Khadiija oo ahaa guddigii tartanka ayaa ammaan iyo bogaadin kala duldhacay ardayda ka qayb qaadanaysa tartankan iyo Maamo Ugaaso oo kaalin weyn ah ka qayb qaadatay hirgelinta tartankani. galabta waxaan meeshaan aan ku qabanay musaabaqa quraaniya oo ay ku tartamayeen 10 gabdhood oo ay qabanaysay Maamo Ugaaso. qof musaabaqa ku dhiiraday oo kursigan soo fariistay waa nin dhisan in adiga musaabaqada quraanka aad ka qayb gashid oo ma arkaysaa su'aalooyin lagu weydiiyo taas ayaa ah dhiirnaasho iyo sharaf. dadkaas waalidiintoodii waxaan leenahay hanii'an lakum waalidiin haddaad tihiin bogaagsi ayaa idin sugnaatay aabbayaal iyo hooyayaalba intaba. waxaana mar walba ku boorinayaa ardada ku tartantay quraanka inay halkaa hankooda uusan noqonin inay halkaa ku ekeeyaane inay halka weyn ay sii higsanayaan rajeynaa insha Allah. ardada iyadana soo tartantay oo maxay tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ugu jecel yahay Quraanka Kariimka ah ku soo tartantana aad iyo aad ban iyagana ugu mahad celinayaa dadkan marti galiyay oo ay kamid tahay Maamo Ugaaso iyadana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa yaani inuu ka dhigo abaalkeeda janno insha Allah ta'ala si ay ugu dadaasho Quraanka Kariimka insha Allah ta'ala dhammaan waxaan leeyahay gabdhaha yaryar soo tartamay hanii'an lakum baan leeyahay. mas'uuliyiintii munaasabada lagu casuumay ayaa waxaa kamid ahaa Professor Hussein Iman iyo Professor Sahane waxayna iyana hambalyo iyo ammaan kala duldhaceen tartamayaasha quraan akhriska iyo dhiirigeliso Maamo Ugaaso waxaana hadaladoodii kamid ahaa guddiga sharafta leh oo ay kamid tahay Macallin Khadiijo iyo macallimada kale la joogta iyo Macallin Nuuno iyo inta kale. أولاً وحين كسلامة سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرحت وين أي تهاي أول سوكو بكرين إن أنا كسوق يبقى مناسبة قروح ضبطان سيدا في عن لوس أقولي Maamo Ugaaso iyo أصحاب الله شقي سنة إن مناسبة سوء أقولان أو قرآن كي وينيان أدي أدوهم هسيهين فرحت وين بيجي تهاي ardada tartantay iyo waalidiinta halkan fadhida iyo cidii qaban qaabisay iyo macallimiintii tartanka qaaday qiimeysayba xalayba waxaan joognay aniyo saaxiibkay Professor Sahane waxaan joognay xafladii kale madaxweynaha uu hadiyadaha xalay ku bixinayay oo quraan akhriska guud oo ilaa Hargeysa ilaa meel walba gobolada dhan laga yimid lagu tartamayo xalay hadiyadaha lagu bixinayaan wada joognay Hotel Jazeera markii la afuray baan iri waad isku filan tihiin aanu xaafad oo Madiina la yiraahdo barnaamij ka socdo oo wiilal iyo gabdho aan adeer iyo abti u ahay Maamo Ugaaso xaflad tartan quraan ugu qabatay yaan ka qayb gali baan ku yiri idinka idin soo fasax qaatay horta barnaamijkayga kale waan ka soo tagay. ugu dambeyn ayaa munaasabada waxaa hadal kooban ka jeedisay Maamo Ugaaso oo ahayd dhiirigelisadii ka dambeysay qabsoomida tartankani waxayna bogaadin iyo hambalyeen hawada u marisay ardaydii ka qayb qaadatay tartanka iyo waalidkii ku soo abaabiyay tarbiyadii wanaagsaneed ee ardayda ka muuqatay.
waalidkii dhala gabdhahan ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay subxaana qaadirka ah wacdiga ma khilaafo ballankii ma khilaafayo allah subxaana qaadirka ah haddana maxay ahayd nasiibka dadka u kala dhaco maxay qof walba ay heer ay gashay marka taasna qof walba iyo nasiibkiisa waaye allah subxaana qaadirka ah ballantiisa waxay ahayd maxay ahayd qofkii bara qur'aan awlaadiisa oo ay xifdiyaan oo xafaad ay naqdaan in insha Allah taaj يوم القيامة لو حرو انت ما انت ماشان isugu timid ilmahooda ku tartameena saas ayagana ilaahay ka dhigo waxaan idin leeyahay وما سنتين جزاكم الله خيرا انت قولي ستنا مبروك اساسين حفلة نوغو حرنتها أبشر معالي جوس أبشر مينمو حرنت مدشة مامو أوغاسا فونديشن مقدشو